Bismillah. Alxamdulilah ilaah mahad iskale walaalyaal mar walba oo joogtaan soo dhawaada. Waxaan bilaabaynaa maanta jabtarkii labaad ee maadada chemistry-ga ah galaaska form 4 ayaan bilaabaynaa. Jabtarkan labaad waa alcohols, phenols iyo ethers ayuu ka sheekeynayaa. Alcoholka iyo phenol iyo ethers saddexdaas qaybood ayuu ka sheekeynayaa jabtar 2. insha Allah waan arki doonaa qaybaha kala duwan aan ku sii faahfaahin doonaa insha Allah. waxaana ilaahay aan ugu mahad celinaynaa inaan jabtarkii hore annaga oo nabad qabna kusoo dhammaynay iyo inaan joogtaynay ilaahay nagu joogtaysii ayaa ku mahadsan alxamdulillah. haddan insha Allah inta ka dhimanna inaan joogtay doona ayaan insha Allah ilaahay ka rajaynaynaa. aada u mahadsantiin insha Allah. waa bilaabaynaa insha Allah waxaan ka bilaabaynaa chapter contents alcohols iyo kala saaridda magacaabidda qaybahaas oo dhan insha Allah ku xil dheeraan doona qaybo hore iyo alcoholka qaabku dhaqmo. bismillah waa galaynaa marka chapter objectives halkaas oo kaaga bilaabaa introductionka waa kuwaasa kadibna waxaan bilaabaynaa page-ka waxaan toos ugu bilaabaynaa halka activity ka dirayaa. waxaan insha Allah ka bilaabaynaa page-ka kan ayaan ka bilaabaynaa page-ka 61 ee buugan ka bilaabaynaa insha Allah. functional group maxaa yiraahdaa kooxaha shaqada. functional group kooxaha shaqada is an atom waa tiro or amasana group of atoms waa kooxa tirooyin weeyaan within a molecule ku dhex jira that kuwaasoo give siiya maxay siiyaan a certain characteristic waa maxay dabeecado cayimanayay siiyaan to the organic compound isku dhisada noolaha. is an atom waa tiro or amasana group of atoms waa koox tiro ah within a moleculeka gudihiis ayay ahaadeen. that kuwaasoo give siiya moleculeka maxaa loola jeeda erey molecule maxaa macno xoogaa noo jilci horto. molecule waxaa waaye erey molecule sida caadiga marka laga hadlaayo molecule waxaa loo yaqaanaa sheyga tirada uu wato curyaha tirada uu wato markay hal ka badataa waxaa loo yaqaanaa molecule loo yaqaanaa. molecule waxaa lagu qeexaa group of atoms curyaasha tirooyinka ay wataan markay hal ka badato ayaa waxaa loo yaqaanaa molecule loo yaqaanaa. waayo marka waxaa leenahay within a molecule ay ku dhex jiraan that kuwaasoo gifsiina a certain characteristic dabeecado cayiman ay siinayaan to the organic compounds ku dhisyada noolayaasha ayaa waxay siiyaan dabeecado cayiman. waxaa jirta marka the first homologa series of meeshaan alkenes oo dhahaa alkenes meeshaan ma aha waxaa laga rabaa functional group ayaa laga rabaa. the first homologa series taxanayaasha isku booska ah ee soo laalaabanaya isku boos marka la waxaa waaye marka meeshaan waxaan ka dhigaynaa the first homologa series of functional group. tobanka kooxood macnaha taxanayaasha isku booska geli karo ee loo yaqaano functional group. marka functional group isaa leedahay inta meeshaas buuga irir madbicigiisa badan. marka the first 7 homologa series of homologa series functional group bal aan fiirino homologa series ugu horeeyo alcohol ugu horeeyo calaamadiis maxaa waa OH waa R tan maxaa waa ROH. general formulas maxaa waa ROH. example waa kaas waxaa kamid maadadaas ayaa kamid ah. qaabkan dhan ay noqonayaan iyagoo faahfaahsan mid walba. functional group waa kana general formula waa kana. functional group iyo general formula maxay kala duwan yihiin. functional group waxaa waaye waxa matalaya sheygaas. tusaale alcohol oo kala haysanaa alcohol wax matalaya OH waaye sida caadi markaan ka hadlayna. marka haddii hal mar aan soo qaadano alcoholka oo kale hadda fiir OH taana matali OH taan represents alcohol waxa matali alcohol ay matali represents alcohol waxa matali waa alcohol waa markaan fiirino qaabkaas uu dhaqmi marka represents waxa matali OH taas alcohol ay matali. waxa meeshan ku yaalo general formula ROH. R taana rabaa waxay inaan idin faahiyo R ta laba mid bay noqotaa mar waxay u taagan tahay hydrogen bound dabar hydrogen ay u taagan tahay. hadda kadib jabtarkan R waan ugu soo laalaaba doonto intaan ku gudo jir ha ku wareerin hydrogen bound iyo waxa kale R ta u taagan tahay sidoo kale ay noqon kartaa alkyl group labadaas mid ay ku timaada R ta mar as alkyl group u shaqeysaa marna waxay u shaqeysaa hydrogen bound u shaqeysaa. tusaale haddii aan soo qaadano
hadda haddii aan soo qaadano maadadan ugu horeyso waxaan ahnay aarta alkyl iyadoo u taaganta oo kale CH3 OH. halahan maxaa waaye alkyl waa aan naqaano methyl ah. halahan waxay u taagan R. OH-tan maxay u taagantahay alcohol ay u taagantahay. waa qaabka marka intaas fahan marka qaabkaas waa R waxay u taagantahay marka R waxay u taagantahay hydrogen bound marna maxay u shaqeysaa as alkyl group ay u shaqeysaa. marka waa qaabkaas sida caadi markaan ka hadlayno siday ku imaatahay markaan ka hadlayno waa qaabkaas. marka waxaa kamid hadda midaan oo kale kamid si sabto heesa 5 hadda fiiri intaan soo socoto fiiri inta maxaa waa taqaanin qof dabtarka hor soo fahmo waa yaqaana. halahan maxaa waa alkyl waa soo ma jeedaan halahan waa alkyl waxaynu u taagan maanta loo qaadanaa calaamada R ayaa loo qaadanaya si fiican fiiri si sabto heesa 5 waa alkyl naqaano oo ethyl lahay waa R loo qaadana OH qaabkaas oo noqonaa marka dhammaan intaas oo kale oo dhan iyaguna waa kuwaas qaacidooyinkooda. marka mid walba gooni waxaan hadda aan u dul maraayo waxa hadda aan u aqrinayn waxa mid walba gooni soo faahfaahsan aan arki doonaa. marka hadda inaan kugu daaliyo video aan waqti ku lumiyo waxba miin ma keenayso. waayahay functional group marka maxay u taagan tahay marka functional group waa fahansama. functional group waxaa raada wax matala koox shaqo OH oo kale hadda aragnay al OH maanta kadib daa aragtid waa koox shaqo oo matalaysa alcohol. OH ku dhagtay isku dhis organic ah hadda kadib waxaa leedahay waa koox shaqo oo matalaysa alcohol matalaysa. OH taas waxay matali hydrogentas oxygentas waxay matali oo ku dhagay isku dhis organic ah ku dhagay waxay matalayaan alcohol. functional group kaas loo yaqaana waana todobada waay todobada insha Allah labada ugu dambeys buu qori maayo laakiin inta kale insha Allah wuu qoraa waan arki doonaa. functional group can also be defined as waxa lagu qeexi karaa functional groupka waxaa kaloo lagu qeexi karaa active part qayb aad iyo aad u firfircoon of an organic compound ah ayaa lagu qeexi karaa. witaasoo is responsible for ka mas'uul ah the characteristics dabeecadaha of that compound isku dhiska ay mas'uul ka tahay. active part yaa noqonaya marka active part yaa noqonayaasa noqonayn page kan oo si fiican ugu sii kala cadeynaa waa kana hal mar fiir meeshaan hydrogen alkyl group part which hydrophobic tawa hydrophobic qaybta biyaha nacab waa ay alcohol part hydroxyl group which is hydrophilic. waa sii faahin doona meeshaas markaan gaara insha Allah kala sii faahin doona aan ka socdo hadda insha Allah si fiican oo sii kala saari doona active part and active part si fiican oo sii kala fahmi doona kala socon. for example tusaale alkeniska iyo alkyne contain waxay ka kooban yihiin double iyo triple ay ka kooban yihiin represent respectively markaan fiirino which are responsible for waxay mas'uul ka yihiin their nomenclature waa maxay magacaabida and property astaamaha. markaan magacaabayn double bound tusaale maadadan waxa ahayd ethene daas responsible for waxay mas'uul ka ahayd double bound ethine aan dhahayni daas responsible for triple bound ay mas'uul ka ahayd. the functional group kooxaha shaqada determinants waxay go'aamiyaan the nomenclature magacaabida shayga. tusaale hadda markaan dhahayo maanta waxay isku bedeli doontaa marka aan halkan joogno ethanol aan leenahay OL taas indicates alcohol represents alcohol ay matali. waa kaasa the functional group kooxaha shaqada determinants waxay go'aaminayaan the nomenclature magacaabida shayga physical habdhaqanka shayga ilaan waa habdhaqankaasi OL alcohol waa alcoholna waa qaabka u dhaqanta ayay tilmaami macnaha shay intaas waaye. anna sidoo kale chemical property astaamihiisa qarsoon of organic molecule oo isku dhiska noolaha ah. in this chapter kan we will discuss waxaan ugu doodi doonaa more about in badan oo ku saabsan property astaamaha of organic molecule. in this chapter kan we will discuss waxaan ugu doodi doonaa more about in badan oo kamid alcoholiska iyo phenoliska iyo ethers. alcoholis maxaa raada sidaas loo magacaabaa ayaan ku arki doonaa. phenoliska maxaa raada sidaas loo magacaabaa etherkase waa maxay asagana sidaas loo magacaabaa. the other functional groups kooxaha kale will be discussed waxaa ugu doodi doonaa next chapter haddii ilahayd mo exerciseka wixii ka dambeeyo. define functional group ardu waa inuu yaqaanaa waa inuu sheegi karo 3 astaamood uu yeelan karo moleculeska kaasoo go'aamin karo functional group uu go'aamin karo waa inuu sheegi karaa. identify waa inuu cadeeyaa ardayga functional groups kooxaha shaqada waa inuu ardayga cadeeyaa in the following groups loo jeeda waxaas asad boos gelin waxba miin mala in the following compounds kulisada soo socdo
markuu ka hadla tusaale arday isku dhiskaan oo arkay waa inuu sheegi karaa isku dhiska noocaan ah waa maxay functional groupka waa inuu ku cadeey karaa insha Allah hadda marka hadda n meeshaan dhibic aan saarnayna dhibicda maxaan u saarnayna markaan insha Allah barana ayaan insha Allah go'aamin doonaa functional group halkaan ku jiro halkaan soo kale b the functional group ku jiro functional group kaas ku jiro markii aan dhammaan chapterka dhameeyno waan kala go'aamin karnaa anaan idiga ballan qaaday inaad kala go'aamin kartaan waayahay lesson objective is alcohol maxaa raada marka alcohol are organic compounds waa isku dhisyo noolayaal ah which kuwaasoo contain ka kooban hydroxyl ka kooban OH group ay ka kooban yihiin as functional group owdaas maxay u taagan tahay kooxda shaqada ee matasha alcohol are organic compound waa isku dhisyo noolayaal ah kuwaasoo contain ka kooban hydroxyl group ay ka kooban yihiin waxayna u taagan tahay OH taasi kooxda shaqada alcohol ay u taagan tahay alcoholiska can also be defined as waxaa lagu qeexi karaa hydroxyl derivatives waa la dhihi karaa waxaa laga keenay OH ayaa laga keenay waa la dhihi karaa of alkane macnaha loo soo raray alkane OH loo soo rarayna waa dhihi karnaa uu leeyahay sidaas looga soo raray macalinow waa caday doonaa insha Allah warkaas practical kugu tusi doonaa in witaasoo one or more hal ama in ka badan hydrogen ah ayaa is replaced by waxaa la dhigaa hydroxyl group ayaa la dhigaa waa kan tusaale for example hal ka mid hydrogen ayaa meesha laga bixinaa bedelka hydrogen OH ayaa lagu bedelaa waa macnaha replaced by one hal ka mid ah hydrogenta hal amaba ka badan ayaa is replaced by lagu bedeshaa hydroxyl group tusaale hadda methanol maadada methanol sidaan ahayd fiiri sidaan ahayd maadada methanol waxa meeshaan taal CH4 ayaa taal methane ay asal ahaan ahayd alkane kan derivatives hal hydrogen replace lagu bedeshay bedelka OH hal hydrogen laga saaray yaa lagu bedeshay bedelka OH markuu waa alkane la soo raray loo soo raray OH markuu dhahay saas ula jeedaa macnu alkane marka ma keenaysa qaacidadiisa waa keeni oxygentas dheeraad ku ah mooyaane intii kale oo ku keenay maanta fiiri waa kana hal carbon hadda methane maxaa ahaa jirta alkane hal carbon afar hydrogen maanta waa hal carbon afar hydrogen iyo hal oxygen waa alkane loo soo raray OH bas la soo raray waayo afarta hydrogen afraad waxaan ka keen OH tan ku darsanayaa waa qaabkaas marka sida caadi markaan ka hadlayno waayahay ka soco midda kale labaadna iidan maxaa waaye waa CH3 CH2 OH idan midda maxaa loo yaqaanaa ethanol ayaa loo yaqaanaa the general structural formula qaab dhismeedka guud ee alcoholiska qaacidada waxaa ROH waa faafahitan hadda kuma sii laabanayo qaacidada guud ROH R taas represents laba midkood way taagantahay saan ku sheegay R waxay u taagantahay waa kana marka hadaan kugu celiyo laba mid bay u taagantahay hydrogen bound iyo alkyl group hydrogen bound oo u taagnaataa alkyl groupna u taagnaataa R waa qaabkaas marka qaacidadiisa guud marka lagu hadlo laga weydiin marka waxa leedahay ROH weer halkaasoo R ay u taagantahay saa ku sheegay is an alkyl ay u taagan tahay methyl waxaan qaadan karnaa tusaale methyl oo kale ethyl iyo etc wixii la mid marka iska ilaali R taasi waxay u taagan tahay hadii la weydiiyo waa qaabkaas therefore that alcohols contain waxay ka kooban yihiin two parties inta taas uusan sheegin waxaa lagu dhihi karaa laba su'aalba kala fahan waxyaabaha conceptina mar walba abaarto waa muhiim waxaa lagu dhahay functional group of alcohol shake functional group of alcohol hadii lagu weydiiyo waxaa leedahay functional group of alcohol waxaa leedahay functional group of alcohol waa OH haye formula for alcohol hadii iyadan lagu weydiiyo maxaa leenahay formula for alcohol idan waxaa leenahay qaacidadeed markaan ka hadlayno sida caadiga ROH kala ilaal warka formula iyo functional ay kariin functional hadii lagu weydiiyo OH bas hadii lagu weydiiyo formula for alcohol ROH saasa ugu jawaabi waa inaa fahanteena filan therefore sidarteed alcohol is contain waxay ka kooban two parties laba qaybood ay ka kooban yihiin qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa hydrocarbon waa alkyl group qaybta u taagan party alkyl group party qaybta u taagan waa which is hydrophobic maxaa loo jeedaa hydro waxaa waay biyaha waa phobicna nacab waa qayb nacab biyaha qaybta alkylka u taagan oo arta waa qaybta nacab
waa qaybta nacab maxay nacbayn biyaha qaybta labaadna waa alcohol part hydroxyl group qaybta OH ahna waa mid is hydrophilic biyaha jecel waa tusaale haddii aan soo qaadano macalin tusaale si noo sii caday waatan maadadan taala CH3 CH2 OH halaan waxay u taagan yihiin ii sheeg waa fahantaa hadee halaan waxay u taagan yihiin R ay u taagan sama R ta qaybta marka maxaa waa qaybta nacab hydrophobic waa qaybtana waxa loo yaqaanaa hydrophobic qaybtaas waxa loo yaqaanaa hydrophobic hate water erey hydrophobic macnihiisu waxa hate water biyaha nacab waa ay macalin u nacbanaadeen qaybtaas maxay biyaha u nacbanaatay waxay u nacbanaatay because maxaa yeelay it is one non polar waay maadaama non polar ay tahay biyahan ay polar yihiin lama falgeli karto laakiin qaybta macalin maxaa qaybtan waxa waa hydroxyl group qaybta la marka waxa waa hydrophilic qaybtan waxa loo yaqaanaa id marka hydrophilic maxaa biyaha jecel hydrophilic macnaha waxa biyo jecel erey hydrophilic hadaa maqashid biyaha jecel waa ereyga hydrophilic love water loo jeedaa love water biyaha jecel macno way ay noqoto qaybtan loo falgash because maxaa yeelay waa polar way maadaama polar ay yihiin biyahan ay polar yihiin saadarteeda qaybtaas waxa loo dhahay hydrophilic loo dhahay ina fahanteen aan filaya oo labadaas erey hadda kadib aysan idigu soo laaban doonin waaya the simplest of alcohols kuwa ugu fudud waa methanol midda ugu yar alcoholka waxa waa methanol was one noun waa mid kamid kuwa ugu caansan weeyaan as waxa loo isticmaalaa wood alcoholka alwaaxda laga sameeyo kala because it was prepared by waxa laga diyaariyaa heating wood alwaaxda gubatay laga diyaariyaa in the absence of air waliba waxa laga diyaariyaa marka hawada oxygen ay ka maqan tahay methanol maadadan is as toxic waa sun to humans bin aadamka sun ay ku noqotaa kawsan waxayna ku sababtaa ugu dambeyntii qofka hadii uu isticmaalo blindness waa maxay indhoolanimay ku sababtaa in low doses waa maxay in low doses waa maxay xataa isticmaalkooda uu yar yahay dose waa isticmaalka 15 ml oo kale ka isticmaalay oo kale maadadan oo kale waxay ku ridaa blindness and death waa maxay dhimasho u keentaa in large amounts kuwa ka isticmaalay tira aad iyo aad u badan 100 ilaa 200 oo ml ka isticmaalay ethanol maadada labaad waxa loo yaqaanaa ethanol is one of the oldest noun waa mid kamid isku dhisyada kuwada ugu muddada dheer ugu oldest waa muddo badan jira waa ethanol qamrada laga sameey jiray waqtiyada hormasaaridii dadka horaanaya aad u aqaanay oo ka sameey jiray maada caan waa ethanol marka waa mid kamid ah kuwa ugu duqsan kuwa ugu da'san marka la waxa muddo dheer ay jirtaa waaye noun pure organic compound waana mid si rasmi ugu midnimi karto isku dhisyada pure organic chemicals waxyaabaha kiimikaad oo isku dhisyada noolayaasha ah is iyada marka production waxa laga soo saaray is fermentation qamriyinta of grains budada of and sugar is sokor la qamriye maxaa loo jeedaa buda iyo sokor la qamriye qamrada laga soo saaraa grain buda la qamriye iyo sokor la isku daray laga soo saaraa waa qamrada sometimes marka qaar waxa loo yaqaanaaba grain alcoholka budada ethanol is alcohol waa present in all wines taasoo laga heli kara qamrooyinka oo dhan laga heli kara qamrooyinka oo dhan classification of alcohols halkaas ay noo joogto qaybtan insha Allah jadwalka kan waa idin kala qaadi doonaa sida uu yahayna insha Allah waan sheegi doonaa markii aan fahanno oo baranno aan insha Allah jadwalka inta idigu soo celiyo kadib aan kala qaadidiis idigu sameey doonaa oo 10kiis wax loo jeedo markaas kadib insha Allah sameey doonaa ma asantiin walaalayaal